bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada jaalka maalmaha waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso mudan in lagu cibro qaato. saddex wiil oo saaxiib ah ayaa waxay ku heshiiyeen inay mar waliba xumaan sameeyaan, balse saddexda mid ka mid a ayaa alla wuxuu waafajiyey inuu xumaantii kasoo toobad keeno, wuxuuna ahaa in mar waliba uusan ku faraxsanayn waxyaabihii xumaa oo hore u sameeyey isaga iyo saaxiibadiis, wuxuuna sidoo kale ku dadaali jiray inaysan salaada mar waliba ka fakanin, isla markaana saaxiibadiis wuxuu ku dhiirigelin jiray inay salaadooda ilaaliyaan. balse saaxiibadiis waxba kama aysan soo qaadi jirin nasiixadiisa, waxayna ahaayeen inay mar waliba u safrayaan meelo kala duwan oo ka mida dunida, ayagoona markaa kusoo samayn jiray waxyaabo aan wanaagsanayn. mar waliba waxay wiilkan usoo bandhigi jireen inuu la safro oo la aado meelaha ay u safrayaan, balse wiilkani waa uu ka diidi jiray. hase yeeshee maalin maalmaha ka mida ayay ku qanceen inuu la galo safar dhulka ah si ay usoo dalxiisaan. waxay saddexdoodii qaateen gaari si ay usoo dalxiisaan. markii ay dhex sii socdaan oo ay masaafo dheer gooyeen ayaa wiilkii waxa qabatay hurdo. wuu iska hurday, wax yar kadib ayuu kasoo toosay, markaasuu soo fadhiistay. markii uu soo fadhiistay ayaa waxaa ishiisa qabatay tabeelaha lagu muujiyo masaafada wadada oo ay ku qoran tahay 150 kilomitir ayaa jahanamo idinkaga dhiman. wiilkii waa uu naxay, wuuna qayliyey. kadib saaxiibadiis ayaa waxay ku yiraahdeen maxaa kugu dhacay? wuxuu yidhi ma aragtaan tabeelaha wax ku qoran? waxay yiraahdeen maya, maxaa ku qoran? wuxuu yidhi waxaa ku qoran jahanamo waxaa idinkaga dhiman 150 kilomitir. labadii wiil waa ay qosleen, waxayna ku yiraahdeen niyow hurdo ayaad ku jirta oo qarwa ayaad sheegaysaa ee iska aamus. wiilkii waa uu iska aamusay. kadib markii ay socdeen xoogaa masaafo ah ayaa waxaa mar kale qabatay hurdo. wax yar ayuu hurday, kadib waa uu soo toosay. mar kale ayuu wuxuu arkay tabeelihii labaad oo ay ku qoran tahay jahanamo waxaa idinkaga dhiman 100 kilomitir. wiilkii waa uu qayliyey, wuxuuna bilaabay inuu saaxiibadiis ku qancinayo inay alla u toobad keenaan, xumaantana ka soo laabtaan. wuxuuna ku yidhi tani waa dhambaal nooga yimid xagga alle ee aan alla u noqono, xumaantana aan ka soo toobad keeno. labadii wiil waa ay ka diideen. kadib wiilkii waxa uu ka codsaday inay gaariga joojiyaan oo kasoo degto. gaarigii ayay joojiyeen, kadibna waa uu kasoo degtay. wuxuuna go'aansaday inuu dib usoo laabto. wadadii ayuu kusoo laabtay. markii uu soo socdo muddo saacada ayaa waxaa ka dabiyeen gaari xamuula. markaas ayuu gacanta u taagtay gaarigii. kadib gaarigii ayaa loo joojiyey, waana uu soo koray. markii uu soo koray ayaa wuxuu arkay ninkii baabuurka waday oo dhahaya innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. markaasuu ku yidhi maxaa kugu dhacay? wuxuu yidhi waxaan wadada kusoo dhaafay gaari yar oo shil galay, waxaan isku dayay inaan badbaadiyo, balse nasiib wanaag gaarigii waa u wada gubtay. wiilkii aad ayuu u naxay, markaasuu ku yidhi gaariga siduu u ekaa. ninkii gaariga lahaa ayaa ku yidhi wuxuu ahaa gaari yar oo raaxo ah. markaasuu wuxuu u tilmaamay noocii uu ahaa gaariga. wiilkii wuxuu ogaaday in gaariga uu ahaa labadii wiil oo saaxiibka ay ahaayeen. markaasuu wuxuu yidhi allah ayaa mahad iskale oo iga badbaadiyey shilkan, ina waafajiyey inaan ka soo laabto xumaanteydii, iyo sidoo kale i waafajiyey inaan waajibkii uu igu lahaa mar waliba inaan daa'imo. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaal cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.